waxaan jecelahay inaan halka ka cadeeyo arintan xusbiga ucid waa ogtihiin diiwaangelinta gudda diiwaangelinta ayaanu abiil ka qaadanay abiilkii aan ka qaadanay maxkamadda sare dastuurkaan u qaadanay go'aan bay soo saartay qaraarkaas oo ah in la raaco xeerka xisbiga shirweyn aan caadi ahayn la qabto oo la raaco qodobka 12aad farqada 3aad kiibaan horta anoo ku soconaa go'aankii maxkamaddan fulinayna guddida diiwaangelinta arrintu way ka timi hadda waxay saarantay maxkamadda ayaan go'aaminaa saa u sheegay gudoomiyaha magaalada guddida diiwaangelintuna anagu sharcigii iyo qaraarkii maxkamadda ayaan fulinaynaa qodob uu leeyahay waa bila sharci isaga sheegi doonaa ku bila sharci ku yahay arintuna hadda uma taalo arinta waxa taala inaan fulino go'aanka maxkamadda waanu dhacay xusbigu shirweynihiisa caadigeyn bisha 7 dhacay hadii la yiraahdo isniinta cid joojin kartaana ma jirto guddidaas awood uma leh ku joojiso qaraarka maxkamadda sharci baan ku taaganahay maaha in kullu wixii mafris lagu soo sheekaysto in la yimaado maaha magaalada saxaafadda sharci baa dalku ku socdaa hadduu sharci ku socon waayo dalku dawladka xoog waa markaa waa jamcaan isku la tagaya qameeru ka soo gala ma jirto in ciyaaliye guddiisu qaraarka xusbiga in maxkamadda mana soo firgelin karo maxkamadda go'aankeeda haddaanu meel ka qaaladno waanu yeelinaa observerska hadda la yiraahdo way eegayaan inaanu fulinay xeerka iyo wuxuu qoriyaa weeye waxaan ku soconno xeer dush naga keen karaan ma jirto cid naga joojin kartaan ma jirto oo soconaya shirki sharci ma ku soconaya qodobada la maxkamaddu fulisay ay natiijo fuliyay baan fulinina wax dheeraad ku qabanayna ma jirto